maxaa dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya magaca iyo calanka looga bedelayaa bishu waa bishii 9aad 14keedii 2024 barnaamijkuna waa dhextaalka iyo toddobaadka aniguna waa libax barqiye dowladda Itoobiya ayaa la sheegay inay go'aamisay in deegaanka Soomaalida laga bedelayo magaca iyo calanka sidoo kalena laga bilaabayo ololayaal dadka laga dhaadhicinayo Itoobiyaanimada xisbiga barwaaqo ayaa la sheegay in tababar loo qaban doono bisha soo socota iyada oo lagu darayo tababar lagu dhalangadiyayo deegaanka Soomaalida gabi ahaanba waxaanu qorshuhu yahay in la tirtiro dhammaan astaamaha muujinaya Soomaalinimada madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar iyo madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo Aadan Faarax ayaa lagu wargeliyay arintani iyagoo hogaamin doona tababaro iyo barnaamijyo lagu qancinayo dadka Itoobiyaanimada midaas oo loo adeegsan doono odayaasha dhaqanka waxgaradka aqoon-yahanka iyo bulshada noocyadeeda kala duwan haddaba wararka ka imanaya ayaa sheegaya in magaca cusub ee deegaanka Soomaalidu uu noqon doono deegaanka bari ee Itoobiya waxaana dood adag oo socota ay tahay sida gobolada Oromiya ee dhinaca bariga laga yeelayo maadaama ay soo galayaan bariga Itoobiya sidoo kale waxaa deegaanka Soomaalida si weyn looga xusi doonaa maalintii shuhaadada Itoobiya iyada oo magaalada Jigjiga iyo meelo kale lagu xusi doono saraakiishii Itoobiya ee ku dhimatay dagaalkii 1977 u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya wararka iyo xogta la helayo ayaa intaa ku daraya in munaasabado kala duwan oo kale lagu qaban doono deegaanka Soomaalida waxaana ka mid noqon doona maalintii ay Itoobiya jebisay Soomaalida 1977 maalintii ciidamada Soomaalida laga saaray Jigjiga maalintii dagaalkii adkaa ee Goday Soomaalida iyo Itoobiya isku farasaareen wararkii toddobaadku halka haynoo joogo maanta